جعلك وعشقك وقوني لكن حقوق إلا إلالينا وباب قونية لذلك حاسس كينا حقوق ذو وان إلالينا إنا وبتكوك حقوق ذو السملات هنو إلالينا إنا وكلا حاني مينو مسؤولية دو مدال الحيث انت دوني بهن نقطين وانا دو عدالة سميسا صدح خسل دون وخسال كان أنسوش ابن كسو هرجيدا حتى يومدوه اللي ماداني كل نغمان ومدوه صدح دانو ويكدو من ظلمك يا خيانة يا بنتا نبغر يا جري قصر بودست قصر مدد بقصر قال دساي مالنتي قصر کی فرح لوگا قاداي ايا لدوان دمene kale naga guddoon jidka uu sii marayay ee qasrigiisa loo marayay aqal yar oo cariish oo buul ayaa ka dhisan cariish baa ka dhisan boqorkii baa aqalkan ayaa leh waxa islaam duqa ayaa leh islaam duqa ayaa leh aqalkan aqalkaygu iga bahdilay عقف مريو قادم بول كيف يسوي بوركا تورا بول صلاة الظهر هاي ما جوكت واي تيمدا قلبتي بيتي مدي ماشي وحي اركي ودا لا غدغا ماشي markaas xaqan ka wareegtay way weeyday aqalkeedii xaqan ay u wareegtay way weeyday waxa taa qoriyay wax ka haray way weeyday askar baa u timid waxa lagu yiri ka dhaqaaq meesha ayaa marka bay tiri maaniga qaldan mise dhulkii baa la rogay maya dhulka laba rogin dhulku waa sax weeyaane xaqaa maqan sheega baa lagu yiri marka bay tiri aqal cariish oo buula ayaan meesha ku lahaa ayaa iga qaaday ma aragteen waxa la waa war laadahay saaka waa lagu waayay boqorkii baa yimid oo yiri aqalkaygiibu fool xumeeye qaado oo maaragtaane kala tuura deedna waa la qaado buurtaasaa laga tuura aqalkaagii oo islaan miskiinada oo da'weyn gacmaha cirka u taagto waxay tidhi yaa rab waadigii yidhi ma innii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu anaa dulmiga iska xarimay baa ilaahay yidhi ilaaha khaaliqe ee rasaaqa ayaa ku yidhi addoommahayga ma dulminayo dulmigaa dhexdiinana xaaraan baa ka yeele ha isku xadgudbina baa ilaahay yidhi yaa rabbi anigu haddaan maqnaa adu miyaanad joogin markii lay dulminaayay maxaad addoonka iga qaban weyday bay ku tidhi duca badan may ducaynin erayadaasay ku ducaysatay laakiin waa hadal qalbiga ka soo baxo waxay tidhi yaa rabbi adigu miyaanad joogin bay ku tihi markii xoolahayga sidaa loo galaayay aqalkayga marka buurta laga tuuraayay adu miyaanad joogin sawdigii yidhi ma anigaa dulmiga iska xarimay misee lay dulma adu maanad joogin ilaahay tabaaraka wa tacaala waa caadil waa muntaqim oo u arguda addoomihiisa ilaahay dabayl intuu ilaahay keenay qasrigii intaa oo sana la dhisaayay dabayl baa ilaahay intuu ka qaaday isagana buurta uu ilaahay gadaashiisa ka tuuray lidaalika dulmiga waa xaaraan weeyaan ummaddu hadday dulmi ku dhaqantana ummaddaasi way duntaa hadday ummaddu cadaaladda ilaalisana ummaddaasi way riiq dheeraataay way barakowdaa wayna jirtaa muslimiintu walaalayaal haddii mar ilaahay naga dhiga dad muslimiin ah shahaadanaya waa inaan diinta islaamka isku jeclaanaa diinteenna islaamka waa inaan isku qadarinaa diinta islaamka waa inaan isku xidhiidhinaa jaarku jaarkiisa xaqiisa waa inuu iska ilaaliyaa xuquuqda jaarka waa saddex bay culimmadu yidhahdeen jaar xaq keliyuu leeyahay jaar laba xaq buu leeyahay jaar saddex xaq buu kugu leeyahay jaarka xagga keliya kugule waa jaarkee waa jaarka gaalka qof gaala daristiin ka soo qaad isku diin ma tihiin waa inaad tidhahdaa maaragtaanay xaqii jaarnimo kugu leeyahay jaarkaaga xaqiisa ilaali cabdillaahi bin cumar bnu khadaab radia allahu canhuma ayaa dariskiisu nin yahuudiya ayuu ahaa cabdillaahi markuu ka yimaada masaajidka reerkiisa wuxuu ku odhan jiray cuntada aad kariseen jaarkeenna wax mauga geyseen buu odhan jiray bal firs waa yahuudi nin yahuudiya ayaa yidhi aqalkayga waan gadayaa layga iibsado waan ka guurayaa dalke oo waan bedelanayaa dhulke markaasaa lagu yidhi qiimihiisu waa imisa waa 120 kun oo dirham buu yidhi markaasaa lagu yidhi aqalka qiimihiisu waa 20 kun boqolka xageed ka keentaa lagu yidhi boqolku waa runtii aqalka qiimihiisu waa 20 laakiin boqolku waxa weeyaan sheekha dariska ilaah darisnimadiisa 100 kun ku iibinayaa buu yidhi waana kuma sheekhaasi waa cabdullaahi bnu mubaarak allah u naxariiste qofka muslimka akhlaaqdaada waa inay gaaladu diinta ku soo gasho saad xuquuqdooda u ilaalinaysid waa inay diinta islaamka ku jeclaadaan tani waa addoontii kani waa addoonkii ha odhanine kani waa bani aadam oo ilaahay baa karaameeyey adigaa lagaa rabaa islaamnimada ilaahay kugu deeqay
inaad isagana aad u dabqato ood u bandhigtaa diinta islaamka xilka diintuna inuu wada saaran yahay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xajatu lwadaac uu la dardaarmay nebigu ummadiisa dardaaranadiisi waxaa ka mid ahay aniga nebigama dambeeyo innakana ummad inagama dambayso kaa maanta shaahida ila joogow kiina maqan gaadhsii buu rasuulku yidhi raggii markaa nebiga la joogay baa isxil qaaday way qaadeen oo risaaladan iyaka ina soo gaadhsiiyey diintu zaman walba dad bay leedahay oo u kaca zamankana xilkii diineed inaguina saaran yahay haweenka xilka diineed baa xil diineed baa saaran odayada xil diineed baa saaran dhallinyarada xil diineed baa saaran gabdhaheena dhallinyarta xil diineed baa saaran marka diinta aan ka shaqayni weynay waxaa dhacday mujtamacii muslimka ahaa in dhallinyaradu dad kale ay ku daydaan oo dhaqan dad kale aan qaadanno oo caqli dad kale ay leeyihiin aan ku soconno maxaa keenay in layna bedilo maanta waad ogtihiin mujtamaca islaamka meeshay doonayba ha joogaane waa layna bedelay waa layna saameeyey maxaa laguu saameeyey dadka dadaalaya waxay wadaan baa ku soo geli adigu laakiin haddaad dadaali lahayd xaqa adigu aad waddaa ummadda kala gaari lahaa naftayda iyo lafihiinnaba waxaan ugu nasteexaynayaa inaan diinta dadaalkeyga aan u kacno oo aan culammada keliya iyo mucallimiinta iyo ducaadda keliya aan ku eegine haweenkeenna dhallinyaradeenna madaxdeenna mijaheenna caamadeenna culammadeenna tujaarteenna fuqaradeenna inaan diinta dadaalkeyga gacmaha isku qabsanno oo nidhaahno wactasimuu bixabli illaahi jamiican inaan sidaa diinteena u wada kacno insha allah wada diyaar garooba insha allah soo diyaar ma nihin insha allah